رئيس الوزراء حكومة الفدرال الصومالية مدن حمزة عبد برre ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay wakiilka gaarka ah ee dawladda Jayna u qaabilsan Afrika ka ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhaxeeya labada dal iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha amniga ganacsiga iyo taageerada isla dawladda Jayna Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa uga mahadceliyay dawladda Jayna taageerada joogtada ah ay la garab taagan tahay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed wuxuuna xusay in dawladda Soomaaliya ka go'an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ee taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labada dawladood dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa la kulmay wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Ra'iisul Wasaaraha iyo wakiilka Midowga Afrika ayaa ka wada hadlay arrimaha amniga dadaalada dib u xoreynta dalka xasilinta iyo doorka ADMIS ee dagaalka lagu ciribtiraya qawaariijta madaxa ADMIS ayaa dawladda Soomaaliya ugu hambaliyay guulaha la taaban karay ciidanka qaranka iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ka soo hooyeen dagaalka lagula jiro argagixisada gaar ahaan guushii ugu dambeysay argagixisada looga xoreeyay degmada istiraatiijiga ah ee aadan yabale gobolka Shabeellaha Dhexe Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa Midowga Afrika uga mahadceliyay doorkooda ku aadan dhismaha nabadda iyo xasiloonida dalka Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho